su'aal kale ka weydiiyo onaf muddo dhow oo hadda gudoomiyuhu intuuna ka Addis Ababa ka soo ambabixina waxay la midoobeen xisbiyo bay dalad la noqdeen xisbiyadaas ay dalad la noqdeen ma intan hadda ay lagu magacyadooda meesha ku xusnaayeen ba ma waxba dib ka soo socdeen muxuu soo kordhin karaa midowgaas oo nalaf ay xagga federaalka iyo Addis Ababa xisbiyada kula midoobayso واتن هذا عن شيء يو حاجرت هذا كور فعلا حال سنة كور مالنت هذه سنة بوح سمي وان كهالليت واشاس وحاجرت إن وبي شوبان يسيتوبي إن لو حسبوا باورفول هي يشري دونا سيدا موقتا من نوع كي بي وهذا كي حسبي دي هو ركوتشري وصور كلامين كل وكان هذا أي أمهار أي قاركود كبر قوسنا يعني بالبدو بلاوين إن يرو مدحوينه هذي لو مجعابي إن كدي ديان ومدحوينه TPLF la soo shaqeeyay hadana aan danta amxaara eegaynin danta EPP iyo ABA iyo way taas way jirtaa laakiin xisbigan ay la midowday Soomaalidu markii hore xisbi bay ahaayeen mid ay dibad ku ahaayeen haddana dhowr iyo 10 xisbi oo ay shukaansanayeen EPP oo ka soo go'ay ayaa wada hadal u socdaa oo maalin boqol laga saxiixi doona tira xisbihan iyaga ka tira badan tira dadahan iyaga ka tira badan حسب ugu powerful san hadii wax cadaalad dhici doono ayuu noqonayaa inta kaliya meesh ku qoran ma inta waa inta ugu waaweyn ee hor saxeelay awal beeshiiska ay arrin bay dadku isweydiinayaan halka aan rabo inaad yara cadayso inta xogtaada qoraalana meelaha saxaafada lagu soo qaato waxay leeyihiin xisbigan Jowhar iyo uu gudoomiyaha ka yahay Maraare Gudana ba xisbiyadan heshiiska lala geli doono qayb ka oo isagana la filaya arintaas way istaashalay iyo doraadba shir bay ku lahaayeen waayo isaga markii Jowhar loo soo jeediyay lagu 2 sanadood resident ayn siyaasadda ma soo dhaxgali kartid wuxuu sheegay in xisbiga oo nala footaleeto afka ku dhuftay gudiyada doorashooyinku iyo marshahada la siinay waa laga cafiyay waxa soo idil aniga maxaa liigu waxaynayaa marka jawaab fiican lama siinin laakiin waxay u badan tahay in la yiraahdo maada ahayn xisbi siyaasi ah soo jawaab soo dagaalantay maada ahayn dad soo cadceliyo xaq raadinay maada ahayn marka siyaasaddu la jiifiyaana banaan laakiin su'aalaha lagu soo imboosgareeyay markii ay dhacday ay kula galgashay dadkiisii shacabkiisii jeedowgiisii toos buu soo dalayaa isagii xisbiga kala way soo dalayaan